waan salaamay saaxiibayaal meel ka soo dhiga daawanaysaan mar kale soo dhawaada kulanti wacan wanaagsan barnaamijkan waxaan si gaar ah ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dadweynaha Soomaaliyeed ee dalkan Kanada u soo socda iyo kuwa ku cusub dalka ee gudihiisa ku sugan waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo 8 wax oo muhiim ay tahay qofka Soomaaliyeed ama qof kasta oo dalkan ku cusub in uu sameeyo noloshiisana u wanaagsan ayaan doonayaa idin la wadaago balse intaana barnaamijka guda galin waxaan idin ka codsanayaa inaad videoga like gareysaan aad subscribe gareysaan channelka asxaabtiina kale aad u maleynaysaan in ay ka faa'iidi karaan aad la wadaagtaan waan idinka mahadcelinayaa midaasna haddaan u guda galo marka qodobadan dhammaantoodba waa u muhiim qof kasta qofba waqti ayuu sameeyaa qodobadan oo dhan waxaan se doonaynaa oo hadafkeenu yahay barnaamijkan u sameeyay sida ay ka dhaqsiyaha badan dalka markaad u imaato qodobadan dhan u samee wax badan ayaa ku fududaanaya ama ku hirgelaya inta dalkan ku sugan tahay qodobka koowaad wuxuu noqonayaa haddii ay jiraan dadkaaga ama ehelkaaga ama familkaaga dad ka maqan oo aad doonaysid hadhow inay kugu soo biiraan oo dalka Canada aad keensato sida ugu dhaqsiyaha badan tahay u qoro ama u sheego oo dawladda ugu wargeli waxay ku fududeynaysaa bari markaad diyaar u noqoto inaad dadkaas dalbato ama dacwad u xireyso in si fudud lagugu keeno ayaa macquul noqonaysa soo sida ugu dhaqsiyaha badan aad dawladda ugu gudbin karto dadkaad u baahan tahay ama ehelkaaga ka maqan falan xilli ugu dhaqsiyaha badan u gudbi dawladda marka qodobka labaad wuxuu noqonayaa marka aad soo gasho dalka inta badan sharci baa lagu soo galaa ama ogolaansho dawladda ay ku soo siisay PR ka ayaa kamid ah hadii PR ka lagu dalbay oo aad dalka warqadii ku sugta lagu soo siiyay sida ugu dhaqsiyaha badan ee marka dalka imaato oo wac dawladda wac u weydii PR kaaga meesha uu marayo mararka qaybtood waxa dhacda dadku inay iska ilaawaan ama aysan dardar gelin helitaanka PR ka kaarka caadiga ee rasmiga sharciga deganaanshaha la yiraahdo xafiiskuna uu bandin gareeyo printer gareyntii kaarka sababta mararka qaybtood waxa dhacda in adresskii la doonayay in lagu soo diro qofkan loogu soo diro kaarkiisa lafta ah in uusanba lahaynin dawladdu aysan ka haynin oo markii confirmationka ama warqadda xaqiijinta la siinayay uusan badalka ku sugnayn qofkaas uu meel kale jiray sida darteed meesha uu degay oo dalka ka degay aanba markaas dawladdu aysan record ka haynin sida darteedna aan la daabicin dhaqso kaarkaagi sida ugu dhaqsiyaha badan u wac dawladda u sheeg BR-kayga xagee marayaa dheh adresska aan deganahay waa kaas update garee si dhaqso lagu soo saaro ha sugin inay bilo iyo usbuuciyo ka qaadato sida uu dhaqsiyaha badan u wac waxa laga yaabaa inay wax ka khaldanayeen oo lagu hagaajiyo oo dhaqso lagu soo daabaco qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa marka dalka ku cusub tahayba isdiiwaan gali luqadda حتى هدي أد هري وحوتقاني الوقت يكون بلونيد كلاسات الوقت ومهم وحلا وسين دونا ورقد اللي هذا CLB أما جريد كاغا شيء taas ayaa wax badan ka caawin doonta haday noqoto dhinaca waxbarasho kale ama tababar kale in raasato way ka caawinaysaa xataa hadii aad taqaan hadii aadan luqadda aqoonina muhiim ay ku tahay inaad bilowdo sida ugu dhaqsiyaha badan waxa mararka qaybtood aan arkaa in dadka qaybtood aysan aadin inay soo diiwaan galiyeen luqadda aysan aadinba maadaama laga yaabo inaysan u baahnayn banaanka aadaan oo kale sida mataqaana khaasatan dumarka ayaan ku arkaa inaysan kalaaskiiba aysan aadin ay familkooda iyo xaafadooda iska dhex joogaan balse waa ku muhiim fadlan tag kalaaskiisa soo qor wax badan bay ku fududeynaysaa qodobka afraad wuxuu noqonayaa qaado credit cardka waxa laga yaabaa inaynan credit cardka macno weyn anaga u aqoonin Afrika markaan joognay balse credit cardkaaga inta sano uu jiro credit cardka waxa la yiraahdaa kaarka deynta bangiga marka tagto laba kaar baa lagu siiyaa kaar waa kaarka oo debit ka oo lacagta aad ku shubatay bes ay kugu jirto kaas qof walba waa haysaa maalinka ugu horeysa aad tagto baa soo qaadan kartaa balse credit cardka waxaan dareemayaa inay dadku inta badan aysan dalbanba muhiimadda credit card inuu leeyahay qofku waxay ka caawinaysaa inuu records laga hayo oo hadhow haduu doono inuu waxyaabo kala doonto kale sida gaari inuu soo qaato wax kala soo qaato inta badan waxa lagu weydiin karaa credit score kaaga keen baa lagu dhahayaa hadiiba aad hal sano laba sano ba joogtay saddex sano oo credit history aadan balahayn wax badan ayay ka hakinayaan oo san ku suurta galeen ba hadii aadan credit history ba aadan haysanba soo sida ugu dhaqsiyaha badan kaarka credit kaarka doono isticmaal ku celi lacagta
credit score-kaaga ayay dhisaysaa kabacdina wax badan ayay kuu furaysaa hadhow albaabadan ayaa kuu furmaya qodobka shanaad wuxuu noqonayaa raadso laysinka darawalnimada waxaa laga yaabaa qofku inuusan u baahanba markuu dalka imaado inuu laysin doonto ama gaari wado ama gaariba uusan haysan taas ayaa waxaa dhacda inay dadku is ilaawaan oo ay waqtigii ay sugi lahaayeen sharciga laysinka ee weyn inay qaataan inay kii yaraaba aysan doonan oo aysan haysanba markay u baahdaan inay gaari wataan ama ay shaqo helaan inay kii weynaa inay raadiyaan kii yaraa kadibna kii weynaa ay ka doontaan waxaa muhiima marka aad ku cusub tahayba kan yar fadlan sida ugu dhaqsiyaha badanba u raadsaba usbuucyada ugu horeysaba soo qaada keen iska hayso gaariba ma baahnid inaad wado laakiin iska hayso wuxuu kuu yaraynayaa waqtiga aad sugi lahayd kii weynaa inaad qaadato ayay kuu fududaynaysaa qodobka lixaad wuxuu noqonayaa dalbo kaarka gaadiidka dadweynaha kaar ayaa jirta lagu raaco basaska iyo tareenada haddii xataa faamilkaaga ama dadkaad u imaatay ay haystaan gawaari oo lagugu wadi karo aadan u baahan iska qaado jeebka iska gasho qofku marka uu cusub yahay waxaa lagu siiyaa kaarka waxa loo yaqaano dakhligiisuna hoose ama low income baa lagu siiyaa saa darteed lacag yar ayaad ku heli doontaa iska qaado oo jeebka iska gasho waxaa laga yaabaa bishiina $5 $10 wax lamida inay kaaga baxdo meel kastana aad u raaci karto xataa haddii aad faamilkaaga gawaari haystaan oo aad raaci karto waa ku muhiim inaad iska haysato jeebka kugu jiro numberka 7 wuxuu noqonayaa CV-gaaga ama resume-gaaga ama CV-gaaga shaqada u dirso marka aad cusub tahay shirkado badan shirkadaha shaqo raadinta u dir xataa haddii aadan markaa doonin inaad shaqo bilowdo dhaqsoba iska dir oo meelo badan u dir ha haystaan oraro badan ama meelo badan bay kaasoo wici karaan hadhow tii aad u baahato unbaad qaadanaysaa haddii aadan markaa shaqo diyaar u ahayna CV-gaagu markay meelo badan haystaan maalinkii aad diyaar noqoto waxaa laga yaabaa inaad shaqo dhaqso hesho haddii kalese mar walba iska gudbiso si aad fursadahaaga shaqo raadintu markaa hadhow shaqada u baahato ay fududaato ama ay badnaato qodobka ugu dambeeya 8 wuxuu noqonayaa soo download garayso Google Map offline-ka nooca online-ka maahan online-ka markuu khadku kuu jeego bas ayaad isticmaali kartaa nooca Google-ka oo offline-ka mapka soo download garayso si adigoo magaalada maraya haddii khadku kaa go ama data uusan kugu jirin datadaada aad u isticmaali kartaa kan offline-ka ah maadaama dhulkan inta badan aan lagu kala lugeynin adigoo aan aqoonin adresska qofka ama meesha u socoto ay khasabta inaad haysato mapka aad ka isticmaasho aad looga isticmaalo mapka soo download garayso nooca mapka oo offline-ka wax badan ayuu ka caawinayaa markii khadku kaa go ama meelaha qaybtood aad internet ku shaqeyn waayo kale wuu ku anfacayaa marka 8daas qodob ayaan doonaya inaan idin xasuusiyo waan idin salaamaya saaxiib meel kastoo diga daawanaysaan mar kale soo dhawaada waxaa inoo ballan insha Allah barnaamijyada soo socda waan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu